بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعن سلامة يا دمان شعبي غير سوماليلاند. وعن مانتا شغاوي مي قبل كأوضل وعن هذا كل سجانا هاي. وعن مانتا يمكن اللي فينا هذله ورد الله ومرجع سده ونجسوا قاري قبل كصاحب وما أنت تقول يمادين عيدا كجمهورية السوماليلاند البوليسكا يضد الشعب أو بيسن مركه هراء وهن تعسيدينية لما ضدك إنك قد انتي أما إنك قد دعوا أما إن إلهي بانو قبرين عافمات سيو أنا وكحن دعد داس أنا شخصيا كرسي aan doonayay madaxweynaha waxa igala qiimo weyn dhiig hal muwaadin oo daata xisbigu hore u sheegay mowqifiyadiisa xisbigu wuxuu taagan yahay nabad wada jir iyo midnimo waanu sheegay marar badan mowqifka xisbigana waa lagu soo celceliyay haddana waan ku celinayaa annagu ma rumaysnin waanu ka soo horjeednaa mana taageersanin in xalku noqdo xabad xoog iyo isbuquunin waxaan ugu baaqayaa xukuumadda Soomaaliland si nabad loo siiyo si fursad loo siiyo nabadda oo dad badan ku jireen kula hawlanaayeen in arrimaha nabadgelyada ay ka shaqeeyaan xalkana qayb ka qaataan hadday yihiin salaadiin hadday yihiin xildhibaano golaha wakiilada hadday yihiin xildhibaanada golaha guurtida iyo cuqaal intuu ay ku hawlanaayeen in hawshaas ay qayb ka qaataan waxaan ugu baaqayaa in madaxweynuhuna ciidankiisa ka qaado shacbiga hubaysanna waxaan ugu baaqayaa inay qoriyaha dhulka dhigaan uma baahnin mar dambe inuu qof inaga dhinto shaqaaqooyinkaas maanta waa 12 August sanadkii hore maalintaas oo kale waxa ka dhacay dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland soo baxay nabadeed oo ay ku dhinteen dad shacab ah oo aan hubaysnayn oo ciidanka boolisku laayay waxaan qabaa dhacdada in laga baaqsan karay tamaanta dhacdayna in laga baaqsan karay baan qabaa waxaan adkaynayaa inaan dhaqdhaqaaq dambe aanu dhicin ciidanka shacabka hubaysanna waxaan ugu baaqayaa inay qoryahana iska dhigaan dhulka dhigaan nabadda qof walba danbay u tahay fursadna in la siiyo dadka ku hawlan nabadaynta hawshaas waxaan ka warqabnaa gobolka Sool in shaqadii ka dhacday iyo dagaalkii ka dhacay oo wali socdo qarankana dhiig wax weyn ku keenay maantana oo wali taagan yahay waxaan ugu baaqayaa dhammaan wax garadka salaadiinta aqoonyahanka ganacsatada culimada inaanay daawadayaal ka noqon arrimaha nabadgelyo darrada ah iyo khilaafka siyaasadeed ay ku dhiiradaan inay qayb ka qaataan xalinteeda mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan ugu baaqayaa in arrintaas nabad xalkeedu yahay xalkeedu aanu ahayn xabad xalkeedu aanu ahayn xoog siyaasadda xisbiguna waa midnimo waa nabad aniguna weligay horena dagaal sokeeyo ugama qayb qaadan imikana diyaarumeehi nabadda iyo nabadgelyada iyo midnimadu waa lama taabtaan waana waajib saaran inuu dhammaanteen ka qayb qaadanno. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.